بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة هوينك هورمارين qoyska xubnaha kale ee ka joogo golaha wasiirada xildhibaanada Puntland xildhibaanada dawladda federaalka ah dhammaan ka soo qaybgalayaasha isu kala duwan siyaasiyiinta dhalinyarada culumada abwaaniinta saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waxaan si gaar ah u salaamayaa gabdhihii yaryar ee runtii soo gudbiyey murti aad u qiimo badan oo dhammaan wixii aad ka hadasheen iyo wixii aad afka kala xishooteen bal ka soo jeediyay aad baan ugu mahadcelinayaa. waan ku faraxsanahay codka haweenka Puntland in uu si cad oo aan qarsoodi lahayn uu bannaanka u yaal oo tiraab iyo tixba ku yaal. waa horumar iyo guul aan u rajaynayo haweenka reer Puntland. waxaan aad ugu faraxsanahay shirkii dhowrka maalmood aad joogteen waxyaabaha quruxda badan ee ka soo baxay. waxaan ku faraxsanahay in jiilashii kala dambeeyey oo dhan ay halka joogeen. waa ilaahay baan ugu rajaynaynaa inuu caafimaad siiyo xaawo. waxaa halka iga muuqanayay dadkii muddada dheer Puntland u soo shaqaynayay Seenab Ugaasiyaasiin iyo Guduudo iyo Caasho Geelle iyo dad badan baa halka iga muuqda. waan rajaynayaa in badan oo khibrad iyo aqoon leh muddo badan soo joogay horumarka haweenka soo shaqeeyay. meesha maanta la soo gaaray cayaar lagu soo gaaray dadaal badan oo waqti dheer soo qaatay oo rag iyo dumarba ka soo qayb qaateen. waxaan filayaa inkastoo cabashadiina iyo doodiina aan tixgelinayo laakiin haddana rag fara badan oo dadaal badan inay la soo galaa jira oo hawl badan ka soo qabtay horumarkiina tacliintiina siyaasad ka qaybgalkiina mar walba dhaqankeennu marka siyaasadda la yimaado unbaa xoogaa tabasho jirtaa. laakiin waxaan rajaynayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland qaybaha kala duwan ee bulshada waxay ka cayaaraan door muhiim ah oo aan la inkiri karin. qodobada halka aad ku soo gudbiseen aanu ahaan sidooda aan u qaatay. waxaan kaloo ballan qaadaa insha Allah golaha wasiiradan waa horgeyn doonaa. waana rajaynayaa qorshaha dawladda inay dhex galaan. horay waxaan qorshaha ugu jiray aragtideennii siyaasadeed iyo qorshihii wasaaradda soo dejisay. qorshahan waa qorsho wasaaraddu ay kala qayb galeen haweenka 9 gobol iyo martida meelaha kale ka yimid oo aad u taabanayay baahida dhabta ah ee Puntland ka jirta. runtii Puntland baahi aad u weyn baa ka jirta. waana adduunka oo dhan oo baahida bini'aadamku ma dhammaato maalinba meel bay joogtaa. si kasta oo meel loo gaaro waxbaa dhiman. marka waxaan rabaa in horumarka iyo dadaalka dadku ay ku jiraan uusan daalin oo uu waqtiyeysnayn oo uusan kala go'in mar walba inuu hor u socdo. waxaan aad ugu rajo weynahay waxyaabaha hoggaankeenna marxaladda uu ka soo baxayo marxaladdii dhaqanka miyiga ku dhisnayd iyo marxaladda magaalooyinka loo soo baxayo oo baahiyihii ay kala duwanaadeen sida aan isu waafajin lahayn waa tala annaga noo taal dhammaanteen. maxaa yeelay baahiyaha cusub de waa baahiyo nolosheenna ku soo kordhay. marka waxay ila tahay waxaan u baahannahay sida markii hore waa dhaqankeenna intaan magaalooyinka la soo gelin ay dumarku dowrkooda uu aad u muuqday. markii magaalooyinka la soo galayna baahida badan in laga joogaabo. waxaan sidooda u qaadanaynaa dhammaan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo dhinac walba oo aad ka hadasheen. waxaan rabaa inaan runtii aad u xuso tacadiyada gabdhaha loo geysanayo oo aan aad uga wada xunnahay dhammaanteen xaqiiqdii oo dumarka kaliya ayna ku ahayna ceebta ugu weyn ee ragga ka haysato. maxaa yeelay gabdhahoodii iyo xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo walaalahood xadgudubka lagu samaynayo cid aqbalaysa ama ogol ma jirto. waxaa ii muuqata inuusan Puntland ku koobnayn dalka Soomaaliya oo dhan oo aad ugu jiro. waxaa Puntland gaar ku ah waxay dhiiradeen gabdhihii reer Puntland inay codkooda kor u qaadaan. isbeddelku waa intaas.
inayna hooyadu gabadheeda wixii lagu sameeyey waa ceeb weeye aysan oranay qarin dacwooto maxkamadaha keento ciidamada la soo xiriirto meediya la xiriirto waxaan aaminsanahay waa guul iyo horumar uma aragno dhaleecayn iyo dhib waxaan qabnaa wax kasta oo dhib oo dhacay inaynan qarsan wixii xumaanta haddaa qarsatid way ku qarsataa baa yidhi marka waxaan qabaa dhibaatada jirta inaan bannaanka keeno sidoo kale waxaan rabaa dadaalkii hay-adaha amnigeenna iyo kuwa garsoorku ay wadeen waan malayn karaynaa inay kolley wax walba waqtigeeda ku dhacayaan inay intaan ka degdegaan way habboonaan lahayd laakiin waxaan rajaynayaa un ama farsamadeenna iyo tabarteennu ha yaraato ama waqtigaa ha u baahnaade maanta soo gaaray kiiskii waxaa loo gudbiyey maxkamadda waxaan rajaynayaa maalinta sabtida kiiska caasho in la qaadi doono haddii ilaahay ka ka xukuumad ahaan meesha naga khusayso maxkamaddaas wixii ay fuliso waa fulin doonnaa haddii ilaahay waxaan rajaynayaa maxkamadduna sida ku cad xeerarka puntland iyo sharciga inay mariso oo ciddii dhibaatadaas geysatay in wax arxana aan loo fiirin waan rajaynayaa inay saa ku dhammaan doonto haddii ilaahay waxaan aad u ixtiraamaynaa kala qaybsanaanta dowladda hay-adaheeda garsoorka iyo fulinta waxaan mararka qaybtood jecelnahay oo dowladnimadeennu ay ku jiraysaa inaan qaanuunka iyo kala dambaynta ilaalino annagoo haddana ay naga marnayn inaan caatifaddeenna cabirno ama waxa qaldan aan sheegno kiiska caayisho si gaar buu u xanuun badnaa iyo kiiskii garow ka dhacay maxaa yeelay kufsiga waxaa u weheliyey dil waxaan rajaynayaa riboorka soo baxaya kufsiyadu tirada waxaa la oran karaa waa batay ama waa yaraatay haddii daato hore lahayn lahaa laakiin waxaa nasiib darro ah bishii hadda la soo dhaafay riboorku wuxuu igu soo gaaray ilaa 9 kufsi inuu ka dhacay puntland inuu batay inuu yaraaday waxaa caddayn karaysa haddii daatooyinka hore marka lagu dhexelo waxaa ii muuqanaya waa aragti cusub oo dhaqan cusub oo aad runtii dhibkiisa u leh oo u baahan heer dowladeed iyo heer shacabba in la iska kaashado taas waxaan qabaa haweenku inay si gaara xil isaga saaraan oo ugu horrayso taxadarka meelaha aan munaasabka ahayn ay ku xigto gaarsiinta laamaha amniga markay ficilku dhacaan waxaan kaloo rajaynayaa sidii gabdhaha ay sheegeen markaan haddii naftooda inay isdifaacaan hadda qori qaatan ima dhahay laakiin in la isdifaaco hadday horor yihiin waa muhiim iyadana waa waxaan fiicnayn wey waxa kan marka insha allah waxaan rajaynayaa difaaciina iyo sharaftiina inay dowladdu ilaalin doonto dadaal badan inaan gelinno annagoo ogsoon culayska dowladda haysta dagaalada ku furan awooddeena intay la eg tahay baahiyaha aad qabtaan idinka iyo bulshadaba ma rabno inaan been sheegno oon idhaahno wax walba ka jawaabayna laakiin dadaal inaan hagran baan rajaynaynaa haddii ilaahay runtii maanta fursad bay ahayd waan ku faraxsanahay in shirkan laga soo qayb galo in badda la soo maro marka abwaanadda waxaan u malaynayaa wax weyn mayn samayn oo reer berigu waxay dhihi jireen ma berrigaan tawakalnaa mise baddaan ku tixisinnaa marka baddaa u sahlaneen iyada laakiin waan dareemayaa meelahaas jidad xumada ka jirta dowladduna runtii waxay la tahay madaxda sarena way tegi doontaa haddana waxaa ilaahay mahadiisa dhulka puntland meelaan dowladdu joogin ma jirto waana ka markhaanti kacaysaan meel aanan xarun boliis iyo service dowladeed uusan ka furnayn oo maamul dowladeed aan lahayn puntland maanta ma jirto waxaad ogtihiin puntland waxay ku guulaysatay xataa ambalaasyo iyadoo la kaashanaysa deeqbixiyaasha ambalaasyo dhinaca badda ka shaqeeya oo sidai hadda sheegaysa hooyadaas caruuro laga soo qaaday boosaaso lagu soo gaarsiiyey waan rajaynaynaa insha allah diyaaradaha helikobtarrana inuu yeeshaan caafimaadka arrimaha degdega ah mustaqbalka marka maamulka dowladdu meel walba waa gaaray laakiin tabarta dowladda
runtii waxay u baahan tahay shaqo badan ay rabtaa inta badan Puntland ama Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay deeq-bixiyaashu dhaqaalaha ay bixiyaan ayay inta badan ku tiirsan tahay dawladdu ma aysan gaarin miisaaniyadeedu dakhliga dalkeeda ka soo baxa in uu daboolo baahida dadkan qabaan meesha dhabta ee loo socdo waa halkaas dawladdu waxay aad wax u ballan qaadi kartaa marka ay si dhab ah miisaaniyad ku talagal ah oo ay garanaysaa haysato miisaaniyadeennu aad bay u xadidan tahay sidaasay tahay Soomaalidu kuwa ugu fiican baan marka meesha aan marayno ma weel wanaagsan Soomaaliya runtii waxaan u rajaynaynaa inay horumar iyo midnimad iyo guul iyo dawladnimo ay ku tallaabsato waxayna u baahan tahay in laga shaqeeyo sidaad ogtihiin wufuud qaybteeda u horeysay maanta inuu furmo ahaa laakiin wufuudii ayaa maanta imaanaysa waxaa ka dhici doona halka shir isugu imaanayaan dhammaan xubnaha dawladaha ka dawladda federaalka iyo madaxda sare ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shirka halka waa shir wada tashi oo loogu talagalay in laga tashado marxaladda maanta dalka marayo dhinacyada muhiimka u ah ee siyaasadda iyo amniga iyo arrimaha kaleeto ee runtii markaas laga gaari karo oo saldhigeedu u yahay sidii dawladdu ay u taabaqaadi lahayd oo ugu horeeyo dastuurka iyo arrimaha la xiriira dabcan shirkan waa shir wada tashi hordhaca wuxuu istaba socon doonaa qaabka dawladda ay u shaqayn doonto marxaladaha soo socda dalkeenu weli wuxuu marayaa dawlad dhis wuxuu qaatay nidaam cusub oo federaal ah wuxuu weli hirgelinayaa qaabka federaalku u shaqayn lahaa caqabado inay jiraan qofna kama inkarsana wax hadda dawladdu federaalku ay gaar u haysato oo aan runtii kala xisaabtano ani mararka qaarkood ima muuqato maxaa yeelay federaalku waa ka soo shaqeeyay laakiin waxa meesha yaalla in la wada tashado oo dalku siduu u socon lahaa laga wada shaqeeyo meesha wax ka dhiman yihiin waxa weeye waxa lagu xisaabtamayo dhan waa hay'ado deeq bixiyaal bixiya wax dawladda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay leedahay oo haysato ma jiraan maanta waxaana keenaya kala dambeyntii iyo dawladnimadii iyo amnigii oo gacanta ku jirin dadkii oo aan runtii dawladnimadii weli qaarkood aysan diyaar u ahayn inay garab istaagaan dawladnimadii la garab istaago macnaheedu maaha in la dhawo ku taageersanay laakiin dawladnimadu waxa way waajibka qofka saaran inuu ka soo canshuurta in la bixiyo sharciga in loo hoggaansamo in qayb laga qaato waxyaabaha danta guud ee dalka uu rabo inuu ku tallaabsado runtii Puntland ammaan gaar ah u soo jeedinayaa dadkeeda oo dad dawladnimada jecel ah oo dad isxilqaama ah oo deegaanada ay ka jiraan oo dhan u hoggaansama awaamiirta dawladda aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa waa dawladda keliya Puntland ee maanta dawladaha xubnaha ka ah iyo federaalkaba aan malaynayo awaamiir garow ka soo baxday isla saacadaas inay ka dhaqan galaysa caluula saaxa iyo tawfiiq markiiba waa guul ilaahay runtii xogtiina maanta halkaa ka soo saarteen dhammaan iyagoo idin matalaya idinkuna ay xubno ilaga joogaan 9 gobol waxaan rajaynayaa inay ka wada dhaqan galaan go'aanadiina iyo qorshayaashiina oo ugu horeyso in bulshada la wacyigeliyo inay bulshada isku tashato in haweenku doorkooda ay qaataan in ay meel looga soo wada jeesado waxyaabaha muuqda oo runtii horumarku waa shay laakiin tacaddiga wuxuu u baahan yahay in laga hortago horumarka waqti buu nooga baahan yahay laakiin waxaan rabaa arrimaha ku saabsan tacaddiga wacyigelintiisa in intaan laga badiyo dadka horarka ah toos lagu shido maxkamada aan naxariis lahayn la saaro ciddii xadgudubka uusan yeelan walaal iyo waalid u dooda inuusan yeelan qofka bulshada runtii dhaawaca ku samaynaya bulshadana awalba liidatay dhaqaale xumo adeeg la'aan duruufo kala haysteen inta keliya Soomaalidu ku faani jirtay waxa weeye sharaf iyo karaamo haysteen haddii sharafta iyo karaamada loo soo dhaco runtii waa dhib marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shacab iyo dawlad ahaan inaan arrintaas meel ka soo wada istaagno aad baan iniga mahadcelinayaa runtii gabdhaha yaryar ee maanta halka ka hadlayna hadal haddii uu wax noqon lahaa intaasaa ku filnay insha Allah abaalmarin gaarna waan siin doonaa heesahoodana waxay u baahan yihiin in dib
loo habeeyo oo idaacadaha laga sii daayo si codkoodu meel dheer u gaaro aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu